Salmaan iyo Salma kuba aysan nooleen nolol farxad leh oo waxay ka masiiri jireen ilmaha asaagoodii ah oo helaya wax walba oo ay doonayaan. Salmaan iyo Salma waxay ugu soo koreen duruuf adag. Assalaamu calaykum saaxiibada ku xiran saasuuban ku soo dhawaada sheeko gaaban oo nagu dhiirigelinaysa samafalka iyo in loo gargaaro dadka saboolka ah gaar ahaan ilmaha agoonta ah. saaxiibayaal janaalka haddii aadan hore ugu soo biirin nagu soo biir oo subscribe inoo dheh. Haddaba waxaa jiray laba caruur oo agoon ahaa oo hooyadood iyo aabahood ay geeriyoodeen waxaana lagu kala magacaabi jiray Salmaan iyo Salma. Salmaan iyo Salma kadib markii ay geeriyoodeen hooyadood iyo aabahood waxaa noloshoodii kafaalo qaaday eeyadood oo ku noolay duruuf adag oo aad sabool u ahayd. Salmaan iyo Salma eeyadood waxay ka shaqayn jirtay xaafadaha waxaana ay u dhaqi jirtay dadka deriska alaabaha iyo dharka. Shilmaadkii yar ay ka soo hesheen waxay ku maareen jirtay nolosha Salmaan iyo Salma iyo waxbarashadoodii. Salmaan iyo Salma kuba aysan nooleen nolol farxad leh oo waxay ka masiiri jireen ilmaha asaagoodii ah oo helaya wax walba oo ay doonayaan. Salmaan iyo Salma waxay ugu soo koreen duruuf adag iyo nolol aad u adag. Maalin maalmaha ka mid ah Salmaan iyo Salma oo iskuulkii laga soo deeyay waxa ay soo dabaraaceen ilmo soo aaday suuqa balse ilmihii waxa ay ku leexdeen meel maqaayi ah. Salmaan iyo Salma maadaama aysan wadan wax lacag ah waxa ay uga hareen albaabkii waxaana ay arkeen ilmihii oo dalbanaya digaag si fiican loo soo dibay cunayana. Salmaan iyo Salma waxa ay dareemeen ciil iyo calool xumo. habeenkii markii ay yimaadeen guriga eeyadood waxay ku yiraahdeen ayeeyo habeen dambe waxaan u baahannahay digaag si fiican loo soo dibay waana daruuri in aan helno. haddii aan heli weyno digaaga ma aadi doono iskuulka. ayeeyadii aad ayay ula murugtay arrinkii. ayeeyadii alisay waxa ay ku kalahday xaafadihii waxaana ay raadisay qof doonaya in wax un loo qabto. ayeeyadii maalinka waxa ay soo qabatay shaqo aad u adag oo aysan ka bixi karin si ay caruurteeda ugu soo iibiso digaaga. kadib waxay soo heshay waxoogoo lacag ah waxaana ay soo aaday suuqa waxay soo iibisay 2 digaag ah iyada oo doonaysa caab inay si fiican uga casheeyaan caruurteedii. balse nasiib daro Salmaan iyo Salma subaxii markii ay soo aadeen iskuulka waa laga soo raacdeeyay waxaana lagu yiri iskuulka kuma soo noqon kartaan idinkoo soo iibsan boorso iyo buugaag cusub. ayeeyadii oo markaa guriga soo gashay isla markii waxaa soo galay haddana Salmaan iyo Salma oo ilmeynaya waxaana ay ku tiri maxaa idin helay. waxay ku yiraahdeen ayeeyo iskuulka ayaa laga soo raacdeeyay waxaana lagu yiri waa inaad soo iibsataan boorsooyin iyo buugaag cusub. caruurtii kalena kulli waa ay soo iibsadeen anaga kaliya ayaa ka dhiman waana la soo raacdeeyay. ayeeyadii ilmihii waxa ay dooran siisay ma digaaga ayaan idin duwaa caaba mise digaaga ayaan suuqa geeyaa oo waan soo iibiyaa si aan idinku soo iibiyo boorsooyin iyo buugaag cusub. waxaana ay ku yiraahdeen ayeeyo sidaa doonti noo sameey. ayeeyadii waxay ku tiri waxbarashadiina ayaa muhiim ah digaaga suuqa ayaan geynayaa waan soo iibinayaa waxaana aan idin soo iibinayaa boorsooyin iyo buugaag cusub. ilmihii waa ay ku raaceen taladii ayeeyadood. ayeeyadii waxay soo qaaday 2 digaaga waxaana ay keentay suuqa. nin dukaan la ahaa ayay ka barisay inay fadhiisato dukaanka hortii oo ay ku iibsato 2 digaaga ah. ninkii dukaanlaha ahaa waa uu ka ogolaaday. ayeeyadii barqadiisay u fadhiisatay waxa ay weysay qof ka iibsado 2 digaag. markii la marayay gabaldhici waxaa soo dul istaagay gabar waxaana ay ku tiri maama waxaan doonayaa digaag yar yar. ayeeyadii waxay ku tiri maya ma hayi digaag yar yar. gabadhii waxay ku tiri anigu ma doonayo digaag waaweyn waxaan doonayaa digaag yar oo aan iibsado. ayeeyadii waxay ku tiri ma aanan keenin digaag yar. ayeeyadii waxay ku tiri 2 digaag waxaan doonayay in aan casho ugu dhigo caruurteedii balse iskuulkii ayaa laga soo raacdeeyay oo waxaan lagu yiri waa inaad soo iibsataan boorsooyin iyo buugaag cusub. annama awoodi lacag kale 2 digaag ayaan suuqa keenay. ninka dukaanlaha ah ayaan ka codsaday inaan hortiisa aan fadhiiso asna waa uu ii ogolaaday. gabadhii waxay ku tiri haddaba haddii ay sidaa tahay waan ka iibsanayaa 2 digaag ee ii diyaari suuqa ayaan wax kale ka soo iibsanayaa. ayeeyadii waxa ay gowracday digaagii waana ay jarjartay. gabadhii waxay aaday meelaha lagu iibiyo buugaagta iyo boorsooyinka caruurta waxaana ay soo iibisay boorsooyin buugaag qalimaan iyo agab walba oo uu isticmaali karo arday. waxaana ay u keentay ayeeyadii waxaana ay ku tiri agabkan u geey caruurta digaaga aad jarjartayna ayaga caawa casho uga dhig. hore ayaan kugu sheegay aniga ma doonayo digaag weyn ee waxaan doonayaa digaag yar. ayeeyadii aad ayay u faraxday iyadoo ilmeynaysana ayay isku duubtay oo ay u daceysay gabadhii. ayeeyadii waxay guriga ku soo noqotay iyadoo sida hilibkii 2 digaag iyo agabkii iskuulka. caruurtii markay arkeen in loo soo iibiyay wax walba oo ay doonayeen
digaagoodina loo keenay aad ay u farxeen habeenkiina waxa ay ku casheeyeen digaag si fiican loo diyaariyay aad ayay u farxeen waxaana ay u mahad celiyeen oo u duceeyeen gabadhii samafalka u samaysay saaxiib yaal muuqaalka laag inoo saarsiina sheer garay kuna soo biirsaad suuban ee subscribe inoo dheh mahadsanid